الله naxariisto hoygii uu degnaa marxuun Axmed Mukhtaar Saalax oo loo yaqaanay Axmedow waxaa booqday duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejneeriso si uu la kulmo qoyskii uu ka baxay marxuun Axmedow oo 20 bishan September ay kooxo rag iyo dumar ka koobnaa si arxandara ugu dileen xaafada Tawfiiq ee degmada Yakshiid. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa qoyska uu la kulmay kaga tacsiiyay dhibkii soo gaaray isla markaana si guud ay ugu damqadeen madaxda qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale gudoomiyaha uu sheegay sharciga loo horkeeni doono shakhsiyaadkii ku kacay falkaasi wuxuushnimada ah inkastoo haatan ay hay'adaha amnigu sheegeen inay gacanta ku hayaan qof ka mid ah qoyska dhibka geystay. Cabduqaadir Maxamed Nuur oo abti u ah marxuun Axmed Mukhtaar Saalax ayaa u mahadceliyay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay dhacdadii argagax reebtay isagoo ka dalbaday maamul gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya in cadaalad la hor keeno dadkii nolosha ku gubay. Allah u naxariisto marxuun Axmedow. Ilaahay u naxariisto dhamaanteen naga tagay. waxaan u jeedaa maanta dawladnimo ka muuqato sidaad arkaysiin waxa la yiraahdaa cadaalad daro meesha way ka baxday. waxaadaas Ilaahay u sugnaatay madaxda qaranka oo wakiil oo ka yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir Dr. Iriso. waxaan rajeeyeen waa aragnaa waxaan rajeeyeen aan sugeene alxamdu rabbil caalamiin waa u jeednaa aniga waxay limidna waxaan u filayaa inay qanacayeen maanta arintan waxaan u xeego waxa waaye cadaalad oo la fuliyo cadaaladna way bilaabatay halka nin kasto wuxuu aaminsanaa meel aas ka dhigo waxa wax sameeyay shakhsiyaad qabiil wax ma sameeynin dawladda hoosna wax ma sameeynin mid qaranba shakhsiyaad wax sameeyay shakhsiyaadkan wax sameeyay waa laga miisaa. duqa magaalada Muqdisho mudane Ejneeriso ayaa si adag u sheegay in aysan jirin muwaadin ka karaamo badan muwaadin kale isla markaana uu Ilaahay isku si u karaameeyay adoomadiisa. sidoo kale gudoomiyihiisu ayaa kafaalo qaaday nolosha qoyskii uu ka baxay marxuun Axmedow. waxaan u nimid inaan u tacsiyeeno qoyskii oo xaasaskii iyo Axmed aabihiis iyo walaalihiis baan soo aragnay sidaan uga xunnahayna aan u sheegnay runtii mid loo dul qaadan karo ma aha. muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba joogaan muwaadin kasto isku xaq u leeyahay muwaadin kale ka xaq badan ma jiro. annagana waxaan u ballan qaadnay koow in marxuunka iyo qoyskiisiiba inaan annagii dawladda hoose gobolka Banaadir ba aan kafaalo qaadno oo aan ka warqabno. labo in wiilkii gabadhii iscaashaqay iscalfaday inaan ayagana amnigoodii iyo sidii ayaga naftirkoodii aan muxuu ahaa ku badbaadin lahayn isla markaana noloshooda u kafaalo qaadi lahayn iyadana inaan u ballan qaadno. anigoo wakiilka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda qarankana inaan u sheegno sida aan uga xunnahay falkan isaga ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale sheegay in si degdeg ah sharciga loo horkeeni doono shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilka marxuun Axmed Mukhtaar Saalax in cid alaal cidii ka dambeysayna cadaalad la horkeeni doono. haddana inta xiranna maxkamadda loo gudbiyay inta dhiman oo waliba gacantooda falkan ku geystay oo dhuumanaysana shacabku waxaan ka codsanaynaa inay hay'adaha amniga oo aad u dadaalaya ay kala shaqeeyaan. waxaan kala uga digaynaa cidda rabto inay cadaalad inta tagto ama islaanta xiran waxaana loo sheegay dad siyaasiyiin waliba xildhibaanaa inay tageen rabaan inay damiin ku soo daayaan. taas ma aqbali doono mana aqbali karno. waxaan leenahay cadaaladda cid ka sarreyso ma jirto madaxda qarankana ma ogolaan doonaan arrintaas iyada ah. waxaanan ugu ballan ah in cadaaladda ay istaahileen ay helaan dadka dembigan foosha xun geystay. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.